بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد magacaygu waa xasan ismaaciil cabdi mid ka mid ah ardayda wax ka barata wadanka Bangladesh caasimadiisa Dhaka jaamacadda Bangladesh University of Health Science marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo howlwadeenada kanaalka aqoon guud oo ugu horeeya injineer Cabdixafiid Sheekh Xuseen oo ah mid ka mid ah ardayda ugu firfircoon ee wadankan wax ka barta mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan maanta aan ka iraado saddex points oo muhiim ah public health branches of public health sidoo kale waxaan rabaa point oo confusing badan oo ka haysto waliba ardayda markay kala xulinayso oo ah environmental health environmental science farqiga u dhaxeeya aan ku bilaabay maxaa la yiraahdaa ii sheeg public health intaan u guudi galin ka hor maxaa la yiraahdaa health waxaa la yiraahdaa qofka inuu u dhameystirnaado jir ahaan maskax ahaan iyo bulsho ahaanba haddii saddexdaas points uu qofku u dhameystiran yahay waxaa dhihi karnaa qofkan uu caafimaad qabaa okay aanu soo dhaadhacno maxaa la yiraahdaa public health waxaa la yiraahdaa qaab science ahaan iyo artist ahaanba in loogu hortago cudurrada waa loogu hortagaa si loo helo macnaha cumri dheeri sidoo kalena kor loogu qaado caafimaadka promotion of health in la sameeyo yaa sameynaya systemkaas waxaa sameynaya bulshada isawaabul xagga bulshada ka yimid lagu maxaa iraahdaa wajaha okay marka waxaan rabaa inaan sidoo kale ka sii jawaabo saddex su'aalood isla public health iyo qosay saddex su'aalood waxay kala yihiin xiriirka ama farqiga u dhaxeeyo public health clinical health sidoo kale yaa responsible ama mas'uulka ee public health sidoo kale yaa fulinayo public health okay aan ku hormaro su'aasha farqiga u dhaxeeyo maxaa iraahdaa clinical health iyo maxaa iraahdaa public health si guud marka u dhaano public health wuxuu focus saaraa population ama maxaa iraahdaa dadka guud sidoo kale clinical health waxa shaqadiisa ay tahay in shakhsiga isla markaas uu dhibaato ay ku dhacdo in la daaweeyo aan tusaale u soo qaadano meel waxay ka dhacday ii sheeg accident ama wax loo yaqaan shilka markuu qofku ku dhaco isla markaa waxa laga yaabaa inuu fracture inuu ku dhaco ama wax la mid ah sidaa daraadeed isla markii qofkaas waxa lala cararaa isbitaalka si loo daaweeyo laakiin public health marka meesha la maraayo shaqadiisa maxay tahay in laba su'aalood la isweydiiyo waay uu dhacay maxaa iraahdaa shilkan sidoo kale how processka uu ku dhacay shilkan marka aan tusaale u soo qaadano waay uu dhacay vision problem qofkan indhaha laga hayaa sidoo kale poor of knowledge jirto qofkan driving ama macnaha waa rooditaalkii uu san aqoonin marka su'aalahaas oo dhan uu isweydiinaa public health kadibna waxaa la helaa jawaabaha taasoo fududaynaysa inuusan dib u soo laabanin accidentian ama shilkan dhacay sidoo kale waxaan rabaa su'aasha kale inaan ka jawaabo yaa fuli macnaha shaqada public health waxaa jira urur la yiraahdo the World Federation of Public Health ururkaas waxay shaqadiisa tahay in public health uu gaaro district kasta iyo location kasta oo dunida ka mid ah marka si loo gaarsiiyo waxay sameeyeen framework waxa la yiraahdo frameworkaas wuxuu ka kooban yahay saddex shay waxa la yiraahdo ii sheeg protection promotion iyo prevention aan tusaale ka bixino protection waxa waaye in laga hortago infectious disease in laga hortago sidoo kale in la helo safe workplace qof kasto maxaa iraahdaa shaqeynayo meesha uu ku shaqeynayo maxaa iraahdaa ii sheeg waa meel suitable aata qofkaas maxaa iraahdaa ii sheeg aan caafimaadkiisa wax dhibaato u geysaneen okay aan u gudubno sidoo kale promotion waxaa la improvement in lagu sameeyo health population of health and promotion lagu sameeyo promoting of health behaviors in la sameeyo tusaale qofkan wuxuu isticmaalaa drugs waxyaabaha maanka dooriya si qofkan uu maxaa iraahdaa caafimaad u helo prevention maxaa way two main points of prevention ay jirto prevention siisa waxa la yiraahdaa in laga hortago cudurka inta uusan ku soo gaarin laba shay loo isticmaalo screening test waxa la yiraahdaa inuu qofka sameeyo screening test maxaa la qofka asigoo aan wax symptoms iska dareemin inuu baaritaan isku sameeyo sidoo kale in la sameeyo vaccination qofkaan inuu talaal qaato marka saddexdan framework si loo helo maxaa iraahdaa maxaa loo baahan yahay afar shay hadaan la helin maxaa iraahdaa ii sheeg public health ma shaqeynayo maxaa good governance waa in la helaa efficacy waxa la yiraahdaa in la helo capacity in la helo information in la helo okay good governance maxaa la good governance hadaan saddex shay la helin good governance lama hayo good governance waxa tusaale loo soo qaaday organizationada ay ugu horeyso maxay iraahdaa wasaaradaha caafimaadka iyo maxay iraahdaa local NGOs iyo international NGOs dhammaan waa inay lahaadaan saddexdan points maxay iraahdaa good governance ay ka sii farxmaan saddexdaas point maxay kaliin accountability macna isla xisaabtan oo ka jira sidoo kale fairness cadaalad waa in ka jirtaa qofkan qualificationkiisa waa meesha ku yimaadaa
si la mid waxay meesha waynay timaada sidoo kale transparency waxa la yiraahdo haddii transparency uu jiro waxa meesha ka baxay maasuq macnaha wax la isdaawo mariyo okay sidoo kale maxaa loo baahan yahay afkaarnasi wax la yiraahdo loo baahan yahay si loo helo macnaha ii sheeg barnaamijkan ilaa dadka loo shaqeynayo barnaamijkan loogu shaqeynayo waa bulshada afkaarnasi wax macnaheedu waxa waa inay voice ku yeeshaan bulshada barnaamijkan waa inay voice ku yeeshaan okay sidoo kale waa in la helaa capacity haddaysan awood jirin dabcan wax soconayo ma lahan sidoo kale waxaa loo baahan yahay information cilmi baaris sax waa in laga helaa cilada meesha ka jirta daan la ogaanin xalka lama heli karo waa in information ama wax la yaqaan ii sheeg cilmi baaris sax meesha laga helaa okay aan ugu baxo maxaa iraahdaa ii sheeg public health afartii su'aalood maxaa iraahdaa aan public health kaga jawaabay branches of public health wuxuu leeyahay public health branches badan waxaa ka mid ah wax loo yaqaan community health environmental health sidoo kale wax loo yaqaan ii sheeg community nutrition global health iyo wixii la halmaala okay aan dhahno maxaa iraahdaa mid ka mid aan soo qaadanay departmenteeda maxaa iraahdaa ii sheeg public health wax loo yaqaan community health waxa la yiraahdaa barashada ka hortagga iyo horumarinta caafimaadka bulshada dhexdeeda community maxaa kelmadda community naftarkeeda aan qeexan community waxa la yiraahdaa dad kale maxaa iraahdaa duduwan laakiin hal hadaf leh okay community health maxay naga saacidaysaa community health waxay naga saacidaysaa in la yareeyo health gabiska yaa ay sababeen kala duwanaanshaha qowmiyadaha kala duwanaanshaha maxaa iraahdaa dhaqaalaha kala duwanaanshaha qofka maxaa iraahdaa isir ahaan it means discrimination inuu meesha ka baxo ay noo faa'iideynaysaa community health okay marka aan u gudbo environmental health iyo sidoo kale environmental science marka hore waxaa wax ka dhigi doonaa environmental health kadibna waa isbarbar dhigi doonaa environmental health iyo environmental science environmental health maxaa la yiraahdaa environmental health waxaa la barashada environmental effect uu ku leeyahay caafimaadka aan tusaale u soo qaadano triangle of epidemiology wax loo yaqaano agent host maxaa iraahdaa environment waa saddex shay isku tiirsan agentina waxa la sida virus iyo bacteria environmentigina maxaa iraahdaa ii sheeg waxa anaga noogu hareeraysan Allah hostigina waa xayawaanada iyo sidoo kale human being tusaale cudurada dilaacay outbreak disease dhacay sida coronavirus waxa la mid yahay si looga hortago ama loo control maxaa loo baahan yahay saddex field waa inay haysataa epidemiology sidoo kale waa inay haysataa ii sheeg laboratory environmental health specialist waa inay haysataa okay epidemiology maxaa waay epidemiology wuxuu focus ka saaraa ii sheeg hostiga saddex su'aal ugu weydiina who yaa tahay when where macnaha ii sheeg hostiguna uu focus ka saaraa okay laboratory muxuu sameynaa agentigu focus ka saaraa what agentigana muxuu yahay maxaa iraahdaa virus miya bacteria miya muxuu yahay okay so environmental specialist muxuu sameynaa why u dhacay cudurkan how haddii aad labadan su'aalood jawaabtooda heshid maxaa iraahdaa ii sheeg waxa ku fududaanay in cudurkaas control tusaale aan soo qaadano waxa la yiraahdaa ii sheeg salmonella waxa loo yaqaanaa bacteria waxa laga helaa inta badan raw chicken ama chickenka ceerinka laga helaa okay salmonella haddii environmental soo maraysa si hostiga soo gaar raw chickenka ilaa waxa isticmaalayo hostiga haddii environmental markay soo marayso la ilaaliyo hygiene and sanitation wax loo yaqaan macna sida qofka inuu gacmihiisa dhaqo si la mid ah sanitizer inuu isticmaalo gloves inuu ku xirto cuduradaas iyadoo nadiif ah hoos ay soo gaarto agentii meesha ka baxay environmental soo reebay macna marka environmental wuxuu meesha kaliya oo agentii uu ka soo gaari karo hostiga waay marka environmental health saas uu muhiim u yahay environmental health iyo environmental science waxa rabnaa inaan isbarbar dhigno okay horta environmental science maxaa la markuu horeys environmental science waxa la barashada components uu ka kooban yahay environmentiga components wuxuu noqon karaa physical wuxuu noqon karaa biological wuxuu noqon karaa chemical isla mid ah relationship-ka ka dhaxeeyo organism-ka okay si aan isbarbar dhig ugu sameeyno environmental science waxay ka timaadaa science and technology field ahaan waxay ka timaadaa science and technology environmental health waxay ka timaadaa environmental health waxay ka timaadaa public health is a field of public health way okay si kooban environmental health maxaa la environmental health waxa la barashada bay'ada iyo sidoo kale waxyaabaha ay dadka bini'aadamka gacmahooda ku sameeyaan sida buildings iyo wax la mid ah environmental science maxaa la barashada bay'ada la environmental science aan mid gaar ah 3 points aad u muhiim ah environmental science lagu bartaa maxay tahay how natural world is work natural world diga soo shaqeeya okay infectiga environment uu ku leeyahay human infectiga uu ku leeyahay environment waa saddexda points ugu muhiimsan oo lagu barto environmental science
environmental science maxaa iraahdaa ii sheeg waa field aad u weyn aadna u muhiim ah markii si la mid environmental healthna waa sidoo kale environmental science branches uu leeyahay brancheskiisa maxaa ka mid ah geology geography zoology iyo wixii la mid ah environmental healthina horaan kaga soo hadalnay hada wa aqulu qawli wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh